السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن أصحابي يا سوتشيدا يا كوتشيرا يا مقليا سو دوادا أرين مهمة ما أنت ربعنا نلشر قريو دي لا هيدمو سو دوا ولا شيء فرحية أيان ميدلات بكو سلامين هذا سو دوا ما يمقلي سانتلو هدي هذه مقلي سان إيشاقة عدك بيجا قابيي أحب سوينا المقلي سان ayaan qurxay ma maqlaysanada ma wanaagsantihi xaaladda ka sheekeeya isaaq soo dhawo walaal adiguna arrin aad u muhiim ah maanta idin la wadaagaya insha Allah ilaahayna ha nagu garab galo fanaan qaaliya soo dhawo caydiid cabdirasaaq salaamaanka sidoo kale war soo dhawo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin waxaad qarsataa way ku qarsadaan baa la yidhi arrin iga yaabisay baan rabaa inaan insha Allah biidnillaah idiin sheego idinla sheergarayaan rajaynaya inay khayr noqon doonto rabbina ha nagu garab galo maasha Allah ayaan haddad maqlaysaan walaalo xoogaa dabayl baa dhacayso waxaan silaar maan lagu maqlaynin إن شاء الله بإذن الله ونسكب لعب دونا أرنت مهم كان كانوا صف فريستي ما تشعلي الله فينا فريستا ونكبق عوف أنا صاير سوء إيجيا لكن كل أصحاب الضنباء سوق اللي دونتانا ومقلي دونتا وأنا أصف كرهين دونا ويأرك يعني إن شاء الله فيصل منى سودو ولا ورث الشيخ ولا شقالي سودو أبكو سودو ويني ولا لا موضوع عن دوني أنا نكلها الله سعاد عبد القادر سودو ولا موضوع عن صف فريستي ما أنت عن دوني أنا لا شر قرايو دوما أشياء بنك هذا قاعد عدلو سودو عبد السلام سودو كل سودو ولا لك معان عبد السلام نابتي معان سودو هذه لهاي دمو waxaan rabaa walaalayaal inaan la sheer gareeyo in muddo arrin cabsi igeliso igu soo noqnoqotay waxaa dhacda inaan cabsi dareemo markaan lugaynayo kale maxaa la yiraahdaa sidii laakiin inaan dhimanayo kala lay tusaa marmarka qaar sidii qadar walaal salaam alaykum salaam rahmatullahi wa barakaatuh soo dhawaada walaalo soo dhawaada aad badiyo soo wada dhaweynaya iimaan soo dhawaada walaal soo markaa waxaa dhacday sucaad codkaygu ma gaabna وديري عدكيك سعاد أديكو ضلع تليفون كاغا دادكو يمقلي يارا أديكو باني مقلينا مركا محا يقول دعضي عبسي بان دريما سان أسعونيو ميلها أسعونيو باشوغي قبسانيا ووحان دريميا إنان هل كالا تاغن تدكو ديمانا سابا اللي يقول هذا عدا إلا هالله السنة مقرانيو هابين هذا كمي دا وحا دعضي مركا inana aanu saaxiibnahay oo aamina milyan la yiraaho habeenna aan aad u fogeyn bay ahayd ayaabaan gurigeeda ku soo caweeyay waan ka imiday inantii ka imi gurigeyga baa soo aaday marka ilaa abaar 8 iyo barkii habeenimo bay ahayd 9kii baan gurigeyga soo gaaray waan ka yara durugsanay wado aanoo maraya marka taago uu yahay gurigeygu taagadii marka soo koray baa la igu yiri halka ha dhaafin iska joog bartaasad ku dhimanaysaa ilmana way iga timi jirkana jirdhaca igu jabtay sidii qof yani de wax lagu jarjarayo kala noqday وحتى أنا شهادة وان كري واي مركا وان أشهادن كري واي رنتي مركا عنشوف ولالكي سودو وان قريدة سيبان نقضي تليفون كيبان لسو بيحي كري واي مركا كرسي دوا أو ميل كرسي أكتيداها حافظ يقول حكتا أو كلا أو تاقد النور دا حيسي بان فريستي مركا كرسي يكو فريستي مركا حوغا وحن ودنها اللي يسير الداي مركا ودنها آدي حنوني
بس markaa aamina wacay aamina telefoonka iga qaban weeyday taxi baan wacday taxigii baan qaatay inantii baan dib ugu noqday waayo waxaan seedaad gurigii gasho waad ku dhex dhimanaysaa deedna cid kuu miciina ama cid kula joogtaa ma jirto xaafadii waa cidla bas markaa inantii baan dib ugu noqday iyadoon ooyayo taxigii baan kasoo degay carruurteeda bannaanka taagnayd markaa waan hadli kari waayo habar hooyan u baahan ku way soo gashay garabkii qabatay gudaha galay markaan guriyihii galay markaan ku dhaamine waan dhimanayaa waxa la guri imka dhimanaysaa markaa waxaan rabaa inaad maxaa la yiraahdaa waalidkayga hooyada iyo reerkayga inaad wargelisaan doonaya dadna waxay ku tirshadaanka iska naar saaxiib cabdi billayso salaatu ka wana wadi waay xitaa inaan salaadii tukado cabdi billasay ku tiri walaal isdaji habeenkii oo dhan adinku waxba aan idin sheegin quraan baan shitay quraankii baan isku akhriyay quraan baan shitay waagi baa bariyay alxamdulillah dhakhtarkaan u tagay waxa la guri ma aragno caafimaadkaagu waa boqolkiiba wax ku meel ku xanuunaysa iyo wax kaasiya ma garanayn sidii waan iska tukanay salaadeedii waan tukadaa caadi baan ahaa waxay ka soo waaday bil kadib baa haddana sidii si lay qabtay waan ka dhaga adaygay dhowr qof baan weydiiyay oo sheegay waxa la guri waa wax caadi ah marka jirku daalan yahay ee aad daalan tahay cali hanad soo dhawow inaad aad baan ku salaamayaa baldeeq sidoo kale inaad soo dhawow dhowr qof markaan weydiiyay aan ku yiri saasaan dareemaa asxaabteedii kamid ahaa waxa la igu yiri way dhacdaa jirkaaga daalan hurdo badan markaa jirku cabsi buu dareemayaa seexo waan seexdaa habeenkii markaan seexanayo markaa aad kursidaas ka sii dhageystaa albaqraas ka dhisa waan seexdaa cid kale lama sheer garay markaa wadaadii xubtoona ma sheegin maalmo kamid ah waxaa dhacday inan aan saaxiib nahay oo joogta maxaa la yiraahdaa jarmalka joogtaan u sheegay ku nimco saasa igu dhacda waana igu soo badanaysaa baan ku dadna waxay ku tiri hadhayalsan saaxiib sheekh u sheeg وين الشيخ وشيكتو ويكسو واد هادنا إنن آدي يدنا ما شاء الله دينتا كو حيل دير أو وذادا أو شوكتا إن كندا أيانو شيغا يدنا ورسل ليلا خير الله سيو وانو شيغا حيكتو والله الشيخ الكن لا جوغنا وانو شيغا يا wax kale ma hadfaxay ilaah baa ku jecela toobadna keen waxana ku jirtana iska daawadadana kaasho way tiri ilaahay ma taqaana u soo noqo de wax kale awalba ma sameynayno xun de waa sameynaysa malay salaadii waan tukanay laakiin de kulli haasuu ma dambi yara waana macsi hadalka yalan ku badinin waxa dhacday haddana asxaabta badanaa guriga saaxiibada baan joogaa markay inantu ii soo gasho waan ka baqaa waan sasaa sidii qof guriga cidlo oo kale jooga baan qaylinaya samadan ka qaylinaya isagu tirna shadaanka iska naar maxaad la sasaysaa habeen badhna maaha waa xilli caadi ah fiid kadib waxaa dhacday waan soo tagay gurigaygaan imi qaybisada dabka maxaa la yiraahdaa aan gashado habeenkii marka seexdo mas bay noqotaa qaybisadii mas bay igu noqotay jaajarka anigu aan jaajarkan isticmaalayaana sidoo kale mas buu igu noqday dadna waa dad sida dadka ila hadlayaan way idilayaan inay idilaan bay isku dayaan sida dadka ila hadlayaan waan ka caawan cudbilis guriga dhan waa cidla ma hadli karayo marmarna inta la qabto cunaha la igu dhagaa meel madow la geliya saanka la qabta la ciijiya kadib waxaa dhacday sidii baan habli haddana ugu sheegay sidii bay igu yiraahdeen waa inaad sheekhu sheegtaa warkayaan ku badna sheekh baan u sheegay waxaan ku jimcihii baan sheekh la xidhay waxaan ku saasa igu dhacda dhibaatadaas aan dareemayaa mana garanayo de wax maxaad samaysaa maxaad dhibaataa maacidbadka cidna kama xanaajiya waan ku yiri waalidkayna raalli buu iga yahay ummadda ilaahayna way iga amaan heshaa oo inta ugu badan waxaan siraa ummadda saaxiib baabad la tahay oo cidna dhibaato uma geysto cidna saacadan isma hayno marka muxuu camalkaagu yahay buu igu yiri waxaan qabtay shaqadeeda iyo camalkaygaan u sheegay kadibna waxaan ku yiri fanaanad baanay hadalkii kooban sheeg buu igu yiri raadi wixii yani khaladaad samayso fanaan baanay wuxuu yiri ilaah baa ifka kugu ciqaabay waxbaana lagu tusayay wax aad wax ku wada qaadata ayaa lagu tusayay qofka ilaahay jecel baan xumaanta ka soo qabtaa inta ka badan waad arkaysaa haddaad ku sii jirto wax badan oo kala aad arkaysaa laana waa runtiisa jirku way gariiraa dhakhtar kasta wiiga waa marba xawadnay xanuunaa jirku intuu gariiro wadnay dhacaya marsan gariiraya markaas oranaya dhiig bay ugu kacsan dhiig ma ahan waxba waa layga waayaa هذا يدنا وحيقول يري هلك أتاجنت هاي وين أتكلم قاعدة وحنا هايسو قرانك أيا هو أهدو قرانك إلهي يجدك إلهي كتوس محل إله هذا إلهي أطابت كان هل كان كتشوش وحا أرجعنت كويس هلك كتشوش مركرنتي وحن دار بضي مدام إلهي تعلي وكفر حسنا الحمد لله رب العالمين وحمان الله قبنا wax la tusayna aan ahayn wax yar oo de aan gami waliba markaan kaliya hay ugu badan tahay asxaabteeda markaan la joogo saaxiibada gurigeeda joogo inta badan waan sasaa markay waan qayliyaa sasku igu badayay runtii laakiin ma arko waxay igu darantay markaan kaliya noqdo ayaa waxaan iimanayaan dadkani ila hadlayana ma arko badana ma arkayo bishana way igu soo badatay imka bishan lagu jiro dhan way haysatay dhibaatadaasi marka alxamdulillah rabbil caalamiin de naftu meesha jirto ilaah baa garanaya oo de diinta la sheego lagu hadda dhimanaysa aan hadda dhinto
oonan toobad keenin waa dhibaato markaa waxaan rabay inaan idinla sheergareeyo in ilaahay toobadiisu way bannaan tahay aan sidaa ku toobad keeno maxaa la yidhaahdaa farahana aan ka qaado shaqada aan haye runtii kuma dhex jirin yaasiin guurso walaalo wallay qabaa soo dhawow markaa maxaa la yidhaahdaa waxaan doonayay halkaa inaan ku joojiyo runtii marka horena kumaan dhex jirin oo waxaan ahaa dadka ka aan saa ugu sii dhex jirin fanka inta wanaagsanna waan ka raaci jiray dadka wanaagsanna waan ku xidhnaa oo dee fanku hadba waa sidaada u dhaqanto markaa waxaan doonaya inaan u mahad celiyo intii ila soo shaqayn jirtay ila soo shaqaysay intii aan ku jiray abwaaniintii garab qabatay fanaaniintii garab qabatay dadkii oo dhan inaan u mahad celiyo aniguna toobad ilaahay way bannaan tahay maanta oo maalintu tahay maantanan aan idinla hadlayo inaan gebi ahaanba iska joojiyey kana codsanayo walaalaha inaanay dhegaysanin oo dhibaatadan ay igu sii badanin halkaa ay igu daayaan ilaahay ha u dambi dhaafo iyagana inuu ilaahayna ii dambi dhaafo oon saa ku daayo aanan layguna soo taagarayn layna dhegaysanin hadday awoodaan anigana ii soo ducaysaan inuu ilaahay saa igaga masaxo oo ilaahay uu khayr ka dhigo soor telefoon baa soo galay marka insha allah biidmillaah abwaaniintaydiina waan u mahadnaqayaa intii awoodaysaana inay heesahayga youtube-ka ka saaraan ee aan garanayo gelisay waan ka dalban doonaa insha allah waana la hadli doonaa intaan garanayo intii kale aanan garanayna hadday videogaygan arkaan ay ka saaraan idinkuna aad iigu ducaysaan toobadda inuu ilaahay maanta uu waafajiyey lay tusay ifka wax laygu tusay inuu ilaahay igula garab galo sidaana hadaayadiisa uu iigu wado insha allah biidmillaah dhowr jeer waan isku dayay waanan idhi waan ka baxaya laakiin waxna maan dareemin waxna maan arkay hobbi buu isaga kay ahaa waan iska qaadi jiray heesaa waan iskaga dhex jir jiray laakiin maanta waxaan wax ku qaata baan arkay oo lay tusay insha allah go-aankaygu waa sidaa walaalahayga qaaliga ah intii la soo shaqaysana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantiinna cafis baad iga wada tihiin abwaaniintayda intaan telefoonadooda hayana waan la xidhiidhaya hadda heesaha aan ka hayo xor bay u yihiin inta aanan hayn telefoonadooda hadday videoga arkaan cidday rabaan bay siin karaan heesaha hadda diyaarka insha allah biidmillaah inta anigu aan la ahay asxaabteen dee haya telefoonkoogana waan wici doonaa walaalkay cabdirashiid calxamari walaalkay cabdirasaaq salebaangaas seer maxamuud cumar walaalkay haatuf ma iloobi karo say ii garab istaageen iyo dhammaanba reer oslo ciiro caydiid dhammaantood waxay siiyaan garab intii aan fanka ku jiray sidaan ahay iyo qofkaan ahay iyo sharaftayda iyo sumcaddeydana way la ilaalin jireen waan uga mahad celinaya iyagana sida iila shaqayn jireen insha allah biidmillaah wax ka wanaagsan baanu ka wada shaqayn doonaa iyagana haddii ilaahay ka dhigo tufaax cali dubbad jaamac anigoo ah oo darajo aan ahayn maanta darajo fanka uu iigu baxay anuu ina cali dubbad jaamaca insha allah asxaab baan idinla ahaan doonaa weligay kalena hari mayno kolley oo de haddaynu fan intii igu taageeri jirtay mar walba waan ahay tufaax waanan la joogaa hadduu ilaahay ka dhigo inuu maskaxda habeenkii waan awoodi jiray 6 heesood inaan xafido fahmadaydu saasay ahayd inta aanu abwaaniintii waaweyneed iyo fanaaniin iyo muusishanno iyo waaberidii hore iyo qof waliba wuxuu igu garab taagnaa fahmadayda oo habeenna igumay qaadan noloshayda laxan lamaan seexanin halka igu siiyaan baan ku xafidi jiray kuna qaadi jiray marka waxaad igu ducaysaan fahmada aan ku fahmay heesaha inaan imanka qur-aanka aan waqti kaga gaadho heer oo aan barto qur-aanka ilaahayna cabsidan aan dareemayo waqtigu ilaah baa garan qof kastaa dhimanaya laakiin baqdintan iyo cabsidan aan dareemayno in ilaahay iga fududeeyo oo aan ka badbaado kana bogsado insha allah intaa un baan rabay inaan la sheergareeyo waana mahadsantihiin dhammaantiin insha allah ilaahayna hayna soo wada hadeeye hana inoo wada dambi dhaafo maalintuna ha idiin wanaagsanaato dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu